بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دمان شعبك قول كالصول قارهان مقالة مدحدة واسعانود وحانقوم بحضنغيا شعبك مديسان سيدا مديسان بالجهلة maamuus kale sida wada jirka noogu soo dhaweeyay idinkoo isu dhan waxaan runtii aad idinka mahadnaqaya iyadoo ay kubayl tahay oo saacadda aynu joogno aynu garanayno inaydaan haddana maanta cadceedda u adkaysateen walaalayaal waan idiin qadimaya horta waxaan maanta idinku imi iyadoo doorashadii ka arsantay 7 cisho inaan idin weydiisto codkiinna waxaan idinku imi inaan codkiinna idin weydiisto aad umaan maqal maxay u tidhaahdeen codka waa siiseen إن شاء الله أنا وحن بلغ هذا إن أنا إسبدل كادون إنسان هجاميو وعدالتكم هجاميو هذا الله ينعضه وحن مركه ولا على كتير سيدين إياه شرمالكي جمال عبدي شلو أو كوجيريودي شلقاري oo ka dhacay cadays oo ka mid ah saraakiisha xisbiga dhalinyarada waxaan ilaahay uga barayaa intii ku dhaawacantayna in shilka uu caafimaad siiyo waxaan kala cambaaraynayaa shalay falkii waxshinimada ahaa ee kulmiye halkan ka sameeyay anigu xabad idima wado caburin idima wado waxaan idiin wadaa nabadgelyo 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 soomaalidu waxay tidhaahdaa biyahan horraantooda arkayey dabadoodu waa huuba sow maaha ee kulmiya u arkaysay shalay walaalayaal Soomaaliland waa shacbi isku mid ah waa shacbi deegaanka Ilaahay ku wada abuuray gobolka Sool caasimadiisu waxay ka mid ahayd 6 degmo ee dawladda Ingiriiska Soomaaliland guuleysatay uga wada tagtay 6 degmo maanta way koreen dadkii way bateen magaalooyinkii way bateen degmooyin baa ka farcamay 6 degmo oo walaalaha oo isku taariikh ah oo isku shacbi ah oo is wada dhalay baynu ahay soo saas ma la saarod iyo taariikhdeedu garowe kama tirsaneen sayidana Djibouti kama tirsaneen laakiin dhamaanteen Soomaaliland baynu ahay soo saas ma gobonnimada iyo halgankeeda iyo xoreynta Soomaalilandna taariikhdeeda way wada xasuusanahay Soomaaliland waxa qaadatay gobonnimada 1960 bishii Juun 22keedii Soomaaliland waxa taariikhdeeda waxa dib u soo noqotay 1990kii laakiin labada taariikhood oo Soomaaliland ma leh halkaana kama bilaabmin 60kii kama bilaabmin 1990kiina kuma dhamaanin taariikh ka horeeyay baynu leenahay taariikh kasta Soomaaliland lahayna ama soo ka dhacdo ama sanad ka dhacdo ama awdal ka dhacdo waa taariikh Soomaaliland leedahay taariikhda aad oo Soomaali oo dhan taariikha ee halgankii daraawiishtu xarunteedu wuxuu ahaa gobolka Sool soo saas maaha
halgankaasi waa halgan Somaliland leeyahay oo Soomaali oo dhan u doonay inuu ku xoreeyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ku dhashay deegaanka Sacmadeeqo degmada Buuhoodle sababtaas maaha xaruntiisu waxay Taleex sababtaas maaha labada taariikhoodba Somaliland ma lahayd daraawiishtu waa taariikh Somaliland leedahay daraawiishtu way ahaayeen annagu qoladan SNMta ka soo jeeda mujaahidiin baan sheeganaa laakiin mujaahidiintii ugu horeysay dee daraawiishta ahaayeen soo maaha taariikhdeena waynu qoraynaa carruurteena inuu dhigaynaa taariikhdaynu ka bilaabi mayso 1991kii waxay ka bilaabaysaa taariikh kasta oo ay awdal lahayd oo ay sool lahayd oo ay sanaag lahayd oo sayda lahayd oo saaxil lahayd boqortooyadii adal bay ka bilaabaysaa waxaynu doonaynaa in carruurteennu aan taariikhda looga sheekaynin in kooban oo keliya laakiin taariikh kasta oo Somaliland lahayd waa taariikh Somaliland lahayd walaalayaal gobolka Sool iyo gobolada bari iyo gobolada galbeedka Somaliland inkastoo dawladnimada ay ku kala horeysay iyo maamulkuba inta badan cabashooyin saami qaybsi ah ayaa laga cawdaa xisbiga wadani waxa ka go'an in gobol kasta helo saamiga waa cadaaladda u leeyahay haddii alla ka dhigo kulmiyaha cusub hadda kulmiyihiisi ilaahay maaha waa kulmiyaha muuse wuxuu rumaysan yahay in reer Sool marti ku yihiin Somaliland maxaa maraka ah wuxuu yidhi wasiirkii daakhiliga cali warar caddaan uga baryay buu yidhi xagla toosiye markii in madaxweyne xubin ka dhigan wuxuu yidhi xaggaa codiga ma xigo sababtaas maaha ma been baa ka sheegaya hadda isagaa yidhi ama waxba kama sheegin haddana wuu idin yimi shalay wuxuu yidhi cod baa idinka doonaya dee meesha codba xagga kamuu soo xigine wuxuu soo dooray shalayka yaa walaalayaal dhowr erey baan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo ay ku kala duwan yihiin wadani iyo kulmiye xisbiga wadani himiladiisu waxa weeye in la dhiso dal midaysan oo xuquuqda muwaadiniintu ay siman yihiin isagu waa kaalada waa idin barayaa wasiirka markaa muuse iyo kulmiye waxay leeyihiin dalka lama laha ee waa la kala leeyahay maxaa sababa waxay leeyihiin jeegaantaa waddanka leh inteenna kala raaciyad baynu nahay taa miyaynu yeellaa annagu waxaanu doonaynaa jeegaanta laftigeedu inay xuquuq inala mida yeelato oo aan iyagana aan la cadaadin laakiin muwaadiniintu ama jeegaan ha sheegto ama wax kale ha sheegto xuquuq isku siman inuu leeyahay ka laascaanood jooga iyo ka ceerigaabo jooga iyo ka saylac jooga annaguna taasaannu aaminsannahay iyaguna waxay aaminsan yihiin in dalka la kala leeyahay kulmiga wuxuu aaminsan yahay in kuraasida la kala leeyahay annagu waxaanu leenahay kuraasida lama kala lahaa anigu reer Sool kama lihi kuraasida dee kii aan ku fadhiyey hadda reer Sool baa ku fadhiya soo maaha hore ka madaxweynahana xaq baa u leedihin ka guddoomiyaha baarlamaanka xaq baa u leedihin ka guurtiga xaq baa u leedihin
كمحكمة حق بأولادي حيلك سلقنا كنا حق بأولادي حكومة وليس دونه أنا وعربنا حكومة شعبي وحياواه ملوي كان صور شيء في ميسا واللي ذليه هاي اللي دسته لكن حكومة كلمية حكومة شجارة من نقول أساسا معها توجد دم ميسا كلمية وإلى هلو بعيه هجامياتك سوس أسمعها شاين حوقي سوارك تريد اللي يمسوها تكنيكا بدن بوتي سو معها أنا وحنا قاعد إلى أن نحوق ديكسن أنه ولا هذا هي النبض وحول بكرنا ما ينادي الله كريم وهمدوينا إلى نعبوره شوي سياسة أو ضدك قرعية ونكون نغنو لما ديجانا دعم شوي كتير هدي الله كريم لكن الدولة وضعنا اعتماده وهمدوينا إلى أن الدستور كفره وأن سومال لان عصب وضع لسنة هدي الله يدهده وحين دولينا إلى الدولة وضعني أي نفرنا إن شاء الله طول عشك بعدي أي نقطة الدولة الشعبي ودلية هي وكتر جنته ضريك الشعبي dalkii waa wada baahan yahay Soomaaliland gobol aan baahi ka jirin ma jiro degmo aan baahi ka jirin ma jirto laakiin mudnaanta waxaan siinaynaa in qofku uu helo waxyaabaha asaasiga nolosha ka maarmin oo ka mid yahay caafimaadku ay ka mid yihiin biyuhu ay ka mid tahay waxbarashadu ay ka mid yihiin wadooyinku guud ahaan Soomaaliland sidaan hore u ballan qaadnay magaalada Laascaanood oo ah gobol inoo muhiim ah way biyo leedahay biyo macaan ma cabto sidii ballanqaadkii maalinta hore aanu ballan qaadnay mashaariicda ugu horeysa waxay noqon doontaa in magaalada loo sameeyo biyo macaan guud ahaanba wadooyinku waxay halbowle u yihiin isu socodka iyo fududaynta nolosha iyo camiraadda intaba mustaqbalkan dhow waxaan ku darsan doonaa mashaariicda aan wadani ku talagalay inuu sameeyo waddada isku xidha Laascaanood iyo kala baydh Laascaanood iyo Taleex Laascaanood iyo Ergaabo waxaanu doonaynaa inaanu abuuro 15 kun oo shaqo 5 sannadood ugu horreeya maamulka waddani si aanu shaqo la'aanta uga saarno dhallinyarada dhammaan gobollada haddii alla ka dhigo waxaanu tayayn doonaa waxbarashada sanadkii dhaweyto 3 kun oo arday baa dhacay ardaydaasi aqoon la'aan umay dhicin ee laakiin tayaxumada waxbarashada ayay u dhaceen waxaanu wax ka qaban doonaa sicir bararka waxaan ku celinayaa ballanqaadkii ciidanka aanu samaynay waxaanu ciidanka u ballan qaadnay markaanu eegnay duruufaha ay ku jiraan iyaga xasaskoodu in boqolkiiba 250 loo kordhiyo mushaharooyinka waxaanu u ballan qaadnay inaanu samayno xafiiska xaqsiinta ciidamada la abuuro waxaanu ballan qaadnay
inaannu askariga dhinta ee maanta bilaa xuquuqda lagu ilaawo isagoo shaqo ku dhintay uu xuquuq yeesho waxaannu doonaynaa insha allaahu inaannu gobolka sool ku bilowno inaannu samayno unug nabadgelyada ilaaliya ciidamada qarankana howlahoodii waajibaadkooda ahaa aannu u dayno unuggaana waxaannu u bixin doonnaa daraawiish waxaannu dhammaystiri doonnaa heshiisyadii xukuumaddii kulmiye ee qabiyada ahaa ee aanay dhammaystirin ee shacbiga gobollada sool iyo sanaag la gashay ay ka mid ahaayeen heshiiskii awrboogays iyo heshiiskii khaatumo labaduba waxaan ku soo gebagabaynayaa duco ilaahay waxaynu ka baryaynaa madar khayr qaba ilaahay waxaan ka baryaynaa madar khayr qaba ilaahay waxaan ka baryaynaa in doorashadu nabadgelyo inoogu dhacdo shacbiga somalilan gaar ahaana taageerayaasha xisbiga waddani waxaannu qabnaa in doorashadii lagu kala bediyey saw saas maaha waxaannu qabnaa in sool codaysay burcana way codaysay cerigaabana way codaysay awdalla way codaysay saaxilla way codaysay hargeysa la isku haysto hargeysana way codaysay kulmiye waxaa laga yaabaa inuu rafad la yimaado rafadkana aynu dul qaadanno ciidamada ammaankaan la shaqayno nabadgelyo aynu ku codayno codkaynu ku badinaynaa ee codka aynu ilaashanno saw isbeddelka taageeri mayno saw dareenka shacbiga isbeddelkaa taageeri mayno saw waddani taageeri mayno saw xisbiga rashada taageeri mayno beddeluu 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 kulmiye beddeluu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu